saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in askar ka tirsan ilaalada shacabka iyo sidoo kale xubno ilaala ka ah xarunta hotel dayax ee magaalada caasimadda Muqdisho saacado ka hor loo wareejiyay xarunta dambi baarista CAD ee Muqdisho. Tani ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada shacabka iyo sidoo kale xarunta hotel dayax ilaaladeeda, halkaas uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. mid ka mid ah ilaalada xarunta ayaa halkaasi lagu dilay, waxaana durbadiiba goobta ku baxay ciidamo kale oo ka tirsan dowladda, waxaana ugu dambeyntii saldhigga la dhigay dhammaan ciidamada isku dhacay, waxaana ugu dambeyntii loo gudbiyay xarunta CAD si baaritaan qoto dheer loogu sameeyo loona ogaado arinta waxay salka ku hayso. ila ka madax banaan labada dhinac ayaa xaqiijinaya ama sheegaya in isku dhaca uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada shacabka ay dalbadeen in qoriga uu soo wareejiyo nin labisnaa dharka shacabka ah, ugu dambeyntiina uu ku wareejiyay, laakiin kadib markii halkaasi uu ka dhaqaaqay ay soo raaceen rag kale oo huweysan. halkaas ayaa tacshirado liisu huwiyey, waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. hadda waxaa socda oo durbadiiba bilowday baaritaan ku saabsan sida ay wax u dhaceen, waxaana kiiska loo wareejin doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya si ugu dambeyntii ay uga garnoqdo natiijana looga soo saaro cidda ku lugta lahayd iyo sidoo kale cidda bilowday dhibkan iyo khasaaraha ugu dambeyntii ka dhashay. waayihii dambe waxaa aad u xoogeysanayay isku dhaca ciidamada iyo sidoo kale dadka shacabka ah, dilalka kuwaas oo ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.